yaasha dhalinyarada haweenka aan la ilaawi karin runtii reer qoryaale sharafta leh saacadaha badan ee aadna sugayseen annaga oo runtii socdaal dheer magaalooyin badan oo xagga laamigeeda ka xigan aan soo marnay ilaa beer waxaan maanta halkan idinku nimina ay runtii tahay gacaltooyo iyo runtii kalgacalkiina iyo taageerada xisbiga hoose annagoo ogsoon in maanta oo maalintii ahayd xisbigu maalinta oo laha u lahaa aanu go'aansanay inaan qoryaale ku imnimaadno sidaad noo soo dhawaysay marka hore waa idinka mahad celinaya mid waan idinka raali gelinayaa oo xaal baan ka bixinayaa midna waan idinkula dardaarmayaa midna waan isfaraynaa insha allahu tacaala mid waan idinka raali gelinayaa xaalna waan ka bixinayaayoo nin aanu isku degaannahay oo xisbiga kulmiyo u shaqaynayo laakiin isagu shaqaalo hoosaada ayaa deegaankan aflagaadeeyey oo dadkiisaa sharafta leh reer qoryaale aan garanayo hablahoodii aan garanayo inamadoodii aan garanayo waayoolkoodii ayuu yidhi waa safaariyo waa la soo raraa taa horta xaal baa idinka siinaya waa nin waxba carabka ka dhowrmayneed isaga afka ka yidhi oo saxaafadda ka yidhi oo ninka jaamac xaaji axmed la yidhaahdo oo aan isku degaan ka soo jeedno jaac waxaan leeyahay meesha waxaan kaaga taageero batay dee aniguna xisbigii baan hogaaminaya adiguna shaqaalo hoosaad baa too nin baad u shaqaynaysaa markaa labadaasayna kala saaray markaa nasiibkaaga iska nasiibso reer qoryaalana annagaa ka raali gelinayna taasi waa taa waa la og yahay oo anigu anigii hore magaalada lagu tilmaamay inay ohaayada tog dheertay soo sidaa maaha miyaydan ahayn ma been baas ohaayada tog dheer maaha waa magaalada tog dheer degmooyinka ugu dadka badan le weeyaan marka inuu dadkiina dafiro oo jiritaankiina dafiro dadkiisii dafiro runtii waa midaynu ka filaynay oo siyaasadda kulmiya ku shaqeeyo taa waa idinka xaalsiinaya waad og tihiin halkan waxaad marayay shalay toole wasiiro magaalada lagu idhaahdo magaalo yar dadkii lacagtii ay ku daadiyeen bay ayay wareejinayeen oo ay lahaayeen waxa guud ha laga qayb qaato waa lacagtoodii cashuuraha lacagtaasi walaalayaal waa lacag goor khaldan la soo saaray oo wakhti khaldan timi oo aan dadka deegaankana abaa lagu hayn ma imanin warta marka hore waa lacagtiinnii waa tii dawladda waa lacagtii cashuurta waa tidii hantida maguurtada ah ay ka mid yihiin guryaha fiinlaanta ah ee tijaarta oomaariya ka mid yihiin laga iibiyey waa ta ay ka mid yihiin laynankii bilayskee la iibiyey waa ta ay ka mid yihiin moolalkii burcee la iibiyey waa hantidii siyaad barre ka tagay lacagtii lagu iibiyey kaaga daran hadday lacagtaa soo saari lahaayeen maalintii darayada iyo diiftu jirtay ee dadkani caydhoobeen war waxba may ahaateen waaba haddee ogobay waxay soo saareen iyadoo dadkii baahnaa aan waxba laga tarin oo kuwii maanta caydho haysay aan waxba laga tarin oo kuwii xooluhu ka baxeen aan waxba laga tegin ayaa maanta iyadoo lagu ololaynayo lagu laaluushayo dadka si cod lagaga helo maanta la soo saaray ma idin qabataa alayla ilaahay hortiidima qabato waxaa kaaga daran dadkii abaartu ka baxday qoryaale meelaha telefishinada labay ka mid tahay soo shaashadaha ka midaan daawanayado 10 milyan oo dollar madaxtooyada lagu ururinayo oo in baad real media soo gaadhay lacagta abaaraha ka soo kabashada anaaba ogo walla idinka tahay tiibaa kulmiyo loogu ololeynaya haddana oo maanta xildhibaan malagmay oo indhuhu halkaa ka soo baxeen siduu wuxuu nu taaligayo deegaanka laga soo doortay iyo wasiir aan naxaynin intuu gaadhiga lagaadhi laangaruusalo cad xagga dambe ku soo guro ayuu 27 kaale sidii hay-adii keer iyo WHO iyo shushu bariisa idin qaaday waar codkiinu mashu bariisu geeyaa doorashadu waxa weeyaan haybadii dadkani ay ammaanadooda ku aaminayeen ciddii hogaamin lahayd cidday ku aamin lahayd haddii ilaahay baa ka haya masiibooyin abaaraha ay ku yimaadaan ciddii u gurban lahayd sida iminkoo kale ciddii sixir bararka haysta iyo dhibaatooyinka haysta wax uga qaban lahayd codkiinu qiimahaas u joogaa maalinta isniintaasoo keliya jaanis ka haysataan waa 12 saacadood sidaad uga faa'iidaysataan ayuu go'aanku noqon doonaa ama waxaad dooran doontaan inaad ku sii jirtaan sixir bararka silica darayada ay abaarti keentay ka soo kabashadeedii waxba laydinka tari waayey biyo la'aantayda haysa iyo weliba la xisaabtan la'aanta accountability wax alaale wax jira oo cid alaale la xisaabtantaan aanay jirin baad sii dooran doontaan ama waxaad dooran doontaan xisbiga isbeddelka iyo rajada shacabka isbeddelkiisu ku xidhan tahay oo aanu annagu hormuud ka nahay oo aad nagula xisaabtami doontaan
oo aad runtii kaa ku ciilbixi doontaan ilaahay idinkii waxaad dooran doontaan kaasoo sidaa maaha midna walaalayaal waa idiin sheegaya waxaa la yidhi sahanku reerkiisa been uma sheego soo sidaa mahmaha soomaalida ee sahan been ciddii uu sahan tegay dee uma sheego annagu waanu idiin sahan tagnay waxaanu idiin soo aragnay guri barwaaqo ah waxaanu idiin soo aragnay guri hayina oo markaa noo reer qoryaala idin doonaya noo imanaya oo markaa noo kaale reer qoryaala la hadal odayaashiisii soo fadhiisanaya oo markaa noo haweenkiisa u qudbadee soo istaagaya oo dhallinyaradiisa duruuftooda dhegaysta markaa noo dhegaysanaya war ilaahay baa idinku dhaartay miyuu ninka murashaxa intii uu sharaxnaa oo la hadli socday miyuu halka marna idinku yimi ee kulmiya wado rag uun la soo dirtuunbaa idin imanaya shaqaalaha soo maaha ha uga sii daraadaana kuwa digaankaygu ha ugu sii shaqaalaysnaadaanayso kuwaas ma yimaadaan dhaallah wadhaaraajico waxaa weeyaan kuwaas waxaan leedihiin walaalayaal annagu waxaan u baahanay ciid aan la xisaabtanno murashaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waa ninka aynu doonayno dooranno waanu idiin soo sahaminay laba jeer buu intii ololaha bilo isku dhow deegaankan yimi baahiyihiinna iyo arrimihiin oo dhan baad kagala hadasheen marka uu xilka helana sidaas u bad nagula xisaabtami doontaan dee annaga hore noomaydaan tijaabina ilmaadeeraal kuwii curadada baaqday ahayd ha tijaabinna mar labaade curadku hadduu baaqdo ka ugu weyn reerkaba ha ahaadee dee mar labaad laguma codaya kaka yar hadduu fiicnaado kaka yar baa caaqil laga dhigaa soo sidaa maaha waar mar labaad ha tijaabinna kuwa curadada baaqday noqday ee mashaariicduun idinku soo qaadanaya ee dilaalkuun idinku soo qaadanaya ee waxaalaana wax kaloo ay garanayaan aanay jirin ee Soomaaliland aan waxba la wadaagi karin qodobka ugu dambeeya dee waabay saaxiibkii uu ka yar xishooday saaxiibkii cali xasan maxamed wasiir deegaanka ka soo jeeda runtii oo aan ixtiraamayno laakiin qodhay xaradii deegaanka sidii ugu lisay ugu muuhanbaynin waa wasiirka ugu iibka badan la jamhuuriyadda waxaalaale wax dhul mugirta la yiraahdo dee amarka ilaahay hadduu ku soo cararayo qoryaale markay soo kulaato muuxitaa wax sii dhigto wax allaale wax ka soo horreeya uu sii dhigtay ma jirto afar buu soo diraa kuwa aan kuu sheegayda le waxbaa laydinku soo horreeya dadkiina aflagaadeynaya wax allaale wax kaloo ka soo horreeya ma jirto maalintii horena waa aniga ku yidhi aniga halkan iguma tartami karo soo sidaa maaha xirsi isaga de weynu isagu de uu ambabaxayo madaxweyne iyo waxbuu haddii laydinkiisa leeyahay de isagu cirre iyo muuse bixi iyo qolyahaasii tartabaa oo aniga hore idinku sheegay laakiin aniga deegaankan cali iyo qolyahan u shaqeeyaa toona igulama tartami karaan horena waan u sheegay waanad muujiseen waa idinka mahadnaqayaa aad iyo aad baad mahadsantiin ballantaynu ku kala tegaynaa waxaa taa idin farayaa codkiinnu waa rabitaankiinna 7 sano 5 sano idin laydinku soo celiyo oo aad go'aan ka gaadhaan waxaa go'aan ka gaadhistaa loo gaadhay dimuqraadiyadda loo qaatay inaad wixii fiirisaan oo muraayadda saartaan oo dabeetana haddaad isku garan weydaan ama wixii ay ballan qaadeen iyo sidii aad doonaysay in u shaqeeyaan ay u shaqayn waayaan inaad markaa isbeddel ku samaysaan ujeeddada ugu weyna dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan aynu qaadanay waaba intaa ma aha in la kala qaybiyo ma aha in oodweyne cadow laydinka dhigo ma aha in burcooyadiiba teedii u liidata oo aan shaqa abuur lahayn oo airboard u shaqaynaynin oo aan xafiis shaqada la geeyo lahayn oo dhallinyaradeedii wada tahriibtay dhallinyarada badda ku dhimanaysa doonta ee libaaxa cunaya ma wuxuu yaqaanaa waxa weeyaan waqooyiga burco iyo galbeedka burco iyo bariga burco miyuu kala yaqaanaa soo libaaxa kumay wada dhiman iskuulka ay gelayaan baa u dan ah ardaydiina maanta iskuulkaa sare ka baxday jaamacado tayo leh inay helaan oo idinka idaanfacaan oo wax idinku soo noqdaan oo qoryaal anfacaan oo Soomaaliland anfacaan isbeddelkaynu doonaynaa waa kaa